waxaa maanta banaanbax weyn lagu sameeyay magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag taasoo lagu taageeriyay madaxweynaha cusub ee ay yeelatay dawladda federaalka Soomaaliya. banaanbaxan ayaa waxaa dadweynuhu dhex marayeen shaarica weyn ee magaalada iyagoo watay gawaari iyo calamo kuwaas ay ku muujinayaan sida ay u taageersan yihiin madaxweynaha cusub ee ay yeelatay dawladda Soomaaliya. dadweynaha ku dhaqan magaalada Baran ayaa waxaa maanta oo ay ahayd maalin Khamiis si wada jir ah ugu soo banaanbaxay kadib markay dadweynuhu soo mareen shaarica weyn ayaa waxaa la isugu tagay fagaare weyn. madasha la isugu yimid ayaa waxaa xiriirinayay Saciid Cabdullaahi Tiij wuxuuna ugu horreyntii ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka Maakhir State Cornel Jibriil Cali Salaad oo isagu hambalyeeyay madaxweynaha wuxuuna yiri tobankii bishatan baa waxa suurta gashay in dawlad dadku doortay oo dadka gudihiisa ku doortay oo ay dadkooda garashadooda iyo mowqifkooda iyo aragtidooda ku doorteen ay ku doorteen baarlamaan dawladeed iyo ra'iisul baarlamaan madaxweyne. sidaa awgeed haddii aanu nahay ummadda reer maakhir waa taariikh magac iska baxay maaha waa taariikhdii soo tiilay 950 sano oo boqortooyada Soomaaliyeed ee warsangeli ee hogteeda iyo maxaan ku yiraahdaa deegaankeeda 950 sano aan la isticmaalsan ee la baxay Maakhir State ama la oran jiray Maakhir State. waa Maakhir State Soomaaliya bay maanta ku magacaaban tahay. waxay hambalyeynaysaa adigoo afkooda ku hadlaya community-ga dadka iyo dhammaan maxaan ku raadayay dadka reer Maakhir iyo anigoo afkooda ku hadlayna waxaan leeyahay waanu ayidaynaa dawladda Soomaaliyeed cusub oo dhalatay. Maakhir State Soomaaliya waa ku salaamaysaa waa ku hambalyeynayaan waa ku ayidsan yihiin waana kaa sugayaan xaquuqda ay lahaayeen ama leeyihiin ama ka maqnaa. taas waa waxaanu leenahay haddaanu reer Maakhirnahay iyo hoggaankooda waxaanu leenahay hala doorto dadku rabo dadku ninkay rabaan hala doorto ra'iisul wasaaraha looga dhigo dadku ninka ay rabaan. madashan ayaa waxaa ka hadlay dadweyne aad u fara badan waxaana ka mid ahaa maayir ku-xigeenka magaalada Baran Seenad Cabdi Aar. dhanka dhaqanka ayaa waxaa ka hadlay Garaad Saalax Garaad Cali Shire ugaas Xasan Jaamac Dhagood caaqil Aadan Xirsi Farole iyo aqoon-yahan Cabdirasaaq Cali Xarbi. geeska ururada haweenka ayaa waxaa ka hadlay ururka An-Nasr 2 qaybtiisa Soomaaliya, ururka Tawakkal, dallada Midnimo waxaana madasha ku soo bandhigeen suugaan qurux badan waana kuwan isbaad leedahay weliga xidhiidh ha gelin taasoo isku tiirsaday hadda kiina taag daranay taageer weligiinay aanuhu markay daataan dabadooda la qabtaayo dalaqaa yaroo harayba la iskaga danaystaaye Soomaaliyey taasoo isku tiirsaday carabka iyo labadiistaan way isyara duqeeyaano dhiigga iska daadshaanay mana kala durkayaano diir baa isugu yaalay Soomaaliyey Cabdirasaaq Cali Bilbil telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Baran.